dowladda Kenya oo mar walba u xusul doobanayso helidda qayb ka mid ah badda Soomaaliya ayaa waxaa jira fashilaad badan oo xukuumadda Nairobi diris la noqotay kuwaasi oo ay ku doonaysay inay ku cadaadiso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan iyo 7 Abriil 2009 markii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo xukuumaddii Kenya kala saxiixdeen heshiis isfaham ah oo ku aadan xadka badda ee labada dhinac. heshiiskan oo dhinaca Soomaaliya uu saxiixay wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumaddii xilligaasi jirtay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halka dhanka Kenya uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi. haddaba xukuumadda Nairobi xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa ay bilowday sidii ay heshiiskaasi kaga dhigan lahayd gaashaanka dood walba oo ka dhan ah sheegashada baddeena maadaama ay ku fasiratay in heshiiskaasi uu yahay mid ay labada dowladood ku heshiiyeen qaybsiga badda lagu muransan yahay. balse waxaa xusid mudan in heshiiskaasi uusan ku jirin wax la xiriira xadka badda hase ahaatee waxa uu dhigaya hanaankii loo mari lahaa xalinta khilaafka xadka badda ee labada dal u dhaxeeyo. inkastoo 1 Agoosto 2009 baarlamaankii Soomaaliya ee xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay laaleen is-afgaradkaasi. haddaba waa maxay siyaasadda fashilan oo Kenya ku doonayso inay ku cadaadiso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya balse fashilka ku soo dhamaaday intooda badan iyo siyaasadda xukuumadda haatan jirta ee ku fashilisay qorshayaasha siyaasadeed ee dowladda doonayso inay boobto qayb ka mid ah baddeena. xukuumaddaasi oo hogaamiye Uhuru Kenyatta ayaa waxay ku fashilantay in ay isku daydo cadaadis Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasi oo keenay fashilaad badan oo Kenya gashay. waxaa ka mid ah fashilaadkii dowladda Kenya ee gashay intii ay isku dayaysay inay cadaadiso Jamhuuriyadda Soomaaliya inay weyso helidda codka golaha ammaanka oo ay kula tartamaysay Jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti. sidoo kale waxa ay weysay qorsho ay ku doonaysay in shabaabka ka dagaalamo Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso kaasi oo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay 1267 qoraalkan waxa uu dhigayay in gargaar aan la gaarsiin halka ay ku sugan yihiin kooxaha loo aqoonsado urur argagixiso taasi oo qayb ka ahayd dadaalada dowladda Kenya ay ku doonaysay hagardaamada ay la damacsaneyd shacabka Soomaaliyeed. hase ahaatee dowladda Soomaaliya waa ay ka soo horjeesatay qorshaha Kenya. warbaahinta maxalliga dalkaasi Kenya mar waliba waxa ay si joogto ah u baahiyaan hadallo sal iyo raad aan lahayn oo ku saleysan kiiska baddeena. xog sir ah oo ay heshay warbaahinta Xamar Official News ayaa sheegaya in xilligan uu jiro isfaham u dhaxeeyo Uhuru Kenyatta wasiirada arrimaha dibadda dalkaasi sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda Kenya taasi oo ku aadan sida ay Monica Juma ay u wajahday kiiska cabsida ay ka qabaan in laga guuleysto ee muranka badda kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa ku fashilantay kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo fashilka sheegashada qayb ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliyeed oo ay u xulatay diblomaasiyiin aan waxba ka fahansaneyn siyaasadda dibadda. sidoo kale xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu eedeeyay in isaguna sabab u noqday guuldarooyinka soo wajahay Kenya maadaama Uhuru Kenyatta uu sheegay in xogayaha marar dhowr ah warbaahinta la hadlay asaguna ku dhawaaqay go'aamo oo aysan la qabin madaxda inteeda kale. si taalamid ah Monica Juma ayaa iyaduna Uhuru Kenyatta waxa uu kaga walwalsan yahay go'aamada degdega ah oo ay qaadanayso maadaama si aan wanaagsaneyn ay u wajahday dowladda Itoobiya oo ay xiriir dhow la lahaayeen. dowladda Soomaaliya waxa ay ka aamustay hadallada joogtada ah oo kaga imaanaya dhigeeda dalka Kenya. sida oo kale waxa ay ka aamusay burburinta goobaha shirkadaha ganacsi ee dalka ugu waaweyn. si taalamid ah waxa ay ka aamustay isku dayo fara badan oo siyaasadda guracan ee Kenya seeflabood ay la tahay. hogaamiyaasha dalkeena Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa la rumaysan yahay inay fahansan yihiin sida ay Kenya u dhowrayso hadal kulul oo ka soo yeera dowladda Soomaaliya taasi oo ay kaga baaqsan karto maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICJ oo xilligan ay taalo dacwadda u dhaxaysa labada dal maadaama ay u soo baxayso fursad ay ku oran karto in diblomaasiyiinteeda aysan soo xaadirin dacwadda iyadoona doodeeda ka dhigi karto in labada dal u dhaxeeyo dagaal. fashilka isku dhaca kala aragti duwanaanshaha hoggaanka Kenya waxaa sabab u ah siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda oo ah mid soo fadhida leh. su'aashu waxa ay tahay
waa tuma cidda siyaasadda wanaagsan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Kenya.